waxaa la yaabaa inankan ka taliya Soomaaliya xalay baa waxaan daawanayay isagoo hadlayo la hadlayo gudidii uu qabanqaabada u bixiyay 20 Juun 1 waa maanaya wuxuu yiri way dhama Soomaaliya way dhamaystiran tahay dawladnimadoodu way dhan tahay inta harsana waa la dhamaystirayaa dadka wax la abaal mariyo lagu abaal mariyo wanaag iyo xumaan lagu abaal marinay noqonaya sidii adeerkii buu hadlaayay xalay waxaad moodaysay kacaankii oo curtay inankaas inuu yahay habeenkii la doortay wuxuu yiri iyadoo hareeraha ka taagan labadii madaxweyne isaga ka horeeyay oo Sheekh Shariif iyo Maxamuud Xasan Sheekh ayaa wuxuu yiri dawladii siyaad barre taydana ku xigta yani wax u dhaxeeyay ma jiraan halka uu marayo iyo hawada uu marayo ayaan la yaabanahay waxa la ummadda Soomaaliyeed hal baan leeyahay ummadda reer Soomaaliland hal baan leeyahay nimanka halka ka taliyana hal baan leeyahay reer Soomaaliya waxaan leeyahay war gees idin wadi maaya waa niman idinku dul ganacsanaya doorta cid la fahmi karo la wada hadli karo oo la kala guran karo wixii ummadan ka dhaxeeyay reer Soomaaliland waxaan leeyahay siyaad barraad dib u dhashay ninkii aynu magaca ku sheegi jiray naanaysta afweyne aynu oran jiray ee dalkan burburiya dhashay waa Farmaajo hadduu soo hanjabaya isagoon dhaafin muxuu ahaa filla Soomaaliya gudaheega lagu ilaaliyo waxaan leeyahay aynu dugtoonaan inama yareero aad wax u qora weeyaano muxuu ahaa waxaan la yiraahdo social media galo lacag ku socoto ummadeenu ha ka foojignaato falalka ay inamadaasi wadaan ha ka midowdo wixii soo maray way garanaysaa waxaan ummadda Soomaaliya xasuusin doonaa oo aan u sheegi wixii ay geysteen dawladda xamar ka dhalatay iyo hadda taaganiba wixii dhacay baan halka media u soo bandhigi doonaa maanaan doonayn inaan muxuu ahaa dadka calool xumo qaadsiino maanaan doonayn dadka iyaga inaan ku reebno oo xumo waxayse nagu kalifaysaa imika inaan ummadayda dagaal gelino oo nu sheegno wixii dhacay haddii la joojina dib u dhici doontaa war aan kala dhowrsanaano ummadda Soomaaliyeed shalayna labaynu kala ahayn maantana taayadii baan la soo noqon cidii kalgacaylka badnayd ee walaaltinimada jecelayd ee muxuu ahaa soo doonatay tiri saddexdii kalena aynu helno calankii Hargeysa laga taagay buu ahaa ummadii cid walba la hadlaysay ka calahayd baa yahay Soomaaliland waxaan leeyahay aryadan kala quusana qoomalaano waxaanu la wada soconnay inaynu 26 Juun u dabaal degnay 9 guura waxaanu kala la soconnaa inaynu 18 Mayna aynu u dabaal degnay 28 guuradii ka soo wareegtay dib u soo noqoshadii xorriyaddii Somaliland ilaa inta waxay ahayd dal madax bannaan waxay ahayd 17 dawladood ee sanadkii Afrika loo bixiyay ee ugu horeeyay ee ka xoroobay gumaystayaashii reer Yurub ee dalalka Afrika maamulayay Somaliland waxaynu ka warhaynaa inay xorriyadda ka hor qaadatay maxmiyadii Soomaaliya ee Talyaanigu gumaysan jiray waxaynu ka warhaynaa in aynu maxaan ku raahdaayay si madax bannaani ah oo walaal jacayl ah oo hamigii iyo qamigii ahaa Soomaali weyn in la helo inay Somaliland ugu biirtay dawladdii markaa ka xorowday Talyaaniga waxaynu ka warhaynaa inay innakana niyad wanaag naga ahayd xamarna raggii u horeeyay ee Somaliland ka socday marka tagan in shuruudo lagu xidhay inaynu shuruudahaas oo dhan aynu wada aqbalnay waxaynu intan imika dambe ee xorriyadda Somaliland dib ula soo noqotay dadweynaha reer Somaliland maamuladeeda dawladood ee kala dambeeyay madaxweynayaashii kala dambeeyay ay maxaan ku dhahdayay xilka dalka soo maamulayeen Somaliland waxay adduunyada oo dhan u sheegtay inay diyaar u tahay
wada hadal iyo nabadgeliyo inay arrimahooda ku dhammaystirtaan Soomaaliya waxaynu mar walba isticmaalnaa kelmadda tiraahda walaalahayo waxaanu diyaar u nahay inaanu wada hadalno sidaynu la soconno madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii ballaadhnaayo hogaaminayay ee laga marti qaaday dalka galbeedka Afrika ku yaala Guinea Conakry in dawladda Soomaaliya ay ka muujisay curfi aad iyo aad u xun dagaal xoog leh inay ku qaaday in ay tiri waxaanu ka ashkateenaynaa midowga Afrika dalka Guinea Conakry halkaynu inaku mar walba ka leenahay walaalihiin waynu wada hadlaynaa ee midowga Yurub Mareykanka maxaan ku dhahday midowga Afrika ururka goboleedka IGAD aynu intaaba u wada sheegno madaxda dalalka aynu mar walba madaxweynuhu socdaalka uu ka tagayna aynu mar walba qodobka aynu adeegsano diyaar baanu nahay walaalaha inaanu wada hadalno waxa ay ahayd jawaabta u dhiganta inay iyagana ka soo noqoto oo ah walaalaha iyaga Somaliland waanu wada hadlaynaa diyaar baanu nahay inaanu wada hadalno waxa ayaan daraa qofkii Somaliland salaamaba dawladii Somaliland salaantaba dawladii Somaliland la kulantaba in mar walba maxaan ku dhahdayay cabasho iyo maxaan ku dhahdayay digniin iyo ashkata la siinayo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Farmaajo waa taa Twitterkiisa warqadii uu ku qoray oo ah waxaanu ka soo horjeednaa nooc kasta oo xadgudub diblomaasiyadeed ah oo ay markhaati furayso arrimihiin ayaamahan dhacay waxaanu ugu baaqaynaa dalalka aanu walaalaha nahay in ay ixtiraamaan Soomaaliya madax banaanideeda iyo qarannimadeeda Somalia sovereignty and statehood kiiska Somaliland waxa uu u yaalaa Soomaalidan ee uma yaala dalalka kale ihtijaajka iyo language-ka noocan ah ee aan diblomaasiyadeed ahayn waxa maxaan ku dhahdayay uu madaxweyne Farmaajo ka soo jeedinaya Somaliland inay madax banaani hesho waxa nasiib daraa Soomaaliya dawladda maanta Farmaajo madaxda ka yahay 17 dawladood baa ka horreeyay 17kii dawladood mid madaxtooyada Villa Soomaaliya dhaaftay male nin kale arrintan soo jeedinaya Villa Soomaaliya waxa ku ilaaliya ciidamada AMISOM Somaliland madaxweynaheedii u horreeyay oo la kulmay xilligii maxaan ku dhahdayay burburkii weli madaxtooyadiisa askari aan Somaliland haynin ma ilaalin gobol kasta oo Somaliland uu taganay isaga iskii u tagayay ilaa iyo madaxweynaha maanta u dambeeya waxaan ka xunnahay walaalnimada annagu aanu u jeedno inaanay u jeedin walaalaha iyaga Soomaaliya waxaanu ka xunnahay dadka reer Somaliland oo dhibaato fara badan soo dhacday oo burbur soo dhacay oo xasuuq soo dhacay oo magaalooyinkeeda siday u dhan yihiin oo la burburiyay soo maray laba magaalo ayaa u badbaaday Somaliland waa laascaanood iyo maxaan ku dhahdayay iyo Boorame rag baa waxay soo jeediyeen markii ugu horeysay halkan la yimi war meeshan meel dad u hooyan kara ma aha Boorame ka yimi dadka hal laga soo raro oo halka Boorame hal la isku cidhiidhiyo niyad wanaagu markuu jiro marka rag sidaa ku talinayeen waa asbaabaha keenay in Somaliland dawlad qoto dheer ka dhisanto in madaxweynayaashu si nabadgelyo ay isu bedelaan
in nabadgelyo caamihii ka jirto in baarlamaankeeda la doorto madaxweynaheeda la doorto golaheeda baarlamaanka la doorto doorashada maanta aan gelinana tii 7 ay noqonaysaa soo socota bulshada reer Somaliland waxaan leenahay walaalo u sameeyaan islahayno dad walaalo ahoo isku afaho isku diinaho dawladda soo wada ahaan jireen naqayeen waxaanana waynu iska kala goran doonaa iyagana macaamil wanaagsan baynu yeelanaynaa laakiin waxa soo baxay waan idin sheegayna madaxda dawladda Soomaaliya madaxda ka ah sidaanu annaku walaalo ugu ahayn aanu idinkana idinka wakiilka ahayn walaalihiin maaha mustaqbalkiina ka soo horjeedaan dawladnimadiina ka soo horjeedaan midnimadiina reer Soomaaliya ka soo Somaliland bay ka soo horjeedaan dawladnimadiina iyo nidaamka aad dhisateen bay ka soo horjeedaan mustaqbalkiina iyo horumarkiina ka soo horjeedaan haddaba waxaan leenahay dadka reer Soomaaliya ee shicibka ah ee dadweynaha ah waxaan walaalayaal idin leenahay dadka maanta aan idin maamulin goboladiina aan wada maamulin xamar iska fadhiya waxaan leenahay dadka nabadgelyo idin horseynaya dadalkiina jaarka idin la walaaleynaya marna ma ahayd dib u tashada oo dad annana aanu afgaran karna idinna dantiina iyo mustaqbalkiina wata doorta waxaan leenahay ku soo ururinayaa annaku shuruuda kumanaan xidhaynin dawladaha farmaajo iyo wasiiradiisu ay maalin walba u tagaan kama ashkatoono dawladaha maxaan ku dhahday cilaaqaadka la gashaan kama ashkatoono dawladaha maxaan ku dhahday aynu hawlaha aan la gashaan kama ashkatoono dawladaha idin kama ashkatayno maalin walba wafdi kasta oo Soomaaliya taga waxa ay ka ashkateeyeen Somaliland dawlad kasta oo ay tagaan ama Afrika ha ahaato ama Yurub ha ahaatee waxay ka ashkateeyeen Somaliland annaku markaa shuruudana kumanaan xidhaynin laakiin waxaanu dib u eegi doonaa qiimeyn dib ugu samayn doonaa farmaajo iyo ragiisa dawladda Soomaaliya madaxda ka ah wada hadaladii inay noo sii socon karaan iyo in kale ayaanu dib u eegaynaa mar walba annaku waxaanu ka fakaraynaa danaha shacabka farmaajona waxaanu leenahay arintaadan iyo markasta oo aad hadashaa dadka reer Somaliland waxa ay xasuusinayaan dhibaatooyinkii ku soo dhacay waxay xasuusinayaan xabaalo wadareedyadii waxay xasuusinayaan burburkii dhaqaale iyo burburkii magaalooyinka ee ku dhacay waxay xasuusinayaan miyi iyo magaalaba dhibaatadii loo geystay oo aad adiguna qayb ka ahayd oo aad adiguna buugaagtaad qortay sida xun ee aad u qortay arrimihii Somaliland laga qoray aad ka qortay iyo halka ay ku xusan yihiin oo qoran yihiin wasiirka arrimaha gudaha wasiirka warfaafinta baada saxaafadda wad salaamantiin horta in yar haddaan dib ugu noqdo taariikhda dad Soomaaliya ilaahay way naga wada dhigay laakiin isticmaalkii hortii dad ninka siba xoolihiisa dhaqdo yaan ahayn isticmaal baa yimiday qaybaha Soomaali loo qaybiyay Somaliland waxa imika aan magacawnay maaha waa Somaliland tii jirtay Somaliland sida taariikhdu qorayso dawlad madax bannaan bay noqotay cid ku khasbaysay cid ku beertana ma jirin laakiin saniyad wanaag iyadoo Somaliland u danaynayso in shicibkii Soomaaliyeed ee isticmaaladu kala haysteen meel la isku keeno wan ogeyn 54kii nagtadii ka dhacday moogtahay reserve area oo dareenkaasi la hayo iyaan rabnay in awood Soomaaliya isku ururta ay wax muhiim ah taasaa keentay xorriyadii iyadoo cidina nagu khasbay oo si independent u qaadanay inaan nidhi mool
walaalihiin ku biiro kuwii kalena raadiya nasiib darro niyad wanaaggii aan la tegnay aan la ku abuuray waxa imika lagu marmayo waa haddaan halkayga maalintii iska joogno marba ma joogeen niyad wanaaggii aan ku tegnay ee bilaa shuruudda aan ku geynay waxay Somaliland kala kulantay waxyaabo aanan la filayn waxaan filaynay in niyad wanaag aw la kulmo kale markii aan arrintii bilaabantay kowdii bishii 7 1960 maamulkii la sameeyey waad ogeydeenoo Soomaaliya waxay qaadatay madaxweynihii waxay qaadatay prime ministerkii waxay qaadatay khaariji waxay qaadatay speakerkii golaha maaliyadii wax kasta waa la sabray waxa weeyaan dawladnimadu waa in moogtahay dee dadka ku dhan wax u dhaxaysa ay noqoto 30 sano iyo saa lagu jiray nasiib darro wax alla wax moogtahay soo gaaray laba high school buu ka tagay moogtahay Ingiriisku halka wax ugu kordhay ma ay jirin jaamacad kaliya haatee oo ku taalo moogtahay wadankii Somaliland ma ay dhicin 30 sano wax dhaqaale ah oo horumar ah oo soo gaaray ma jirin intaa wax raacday dee dadkii markay dareemeen in moogtahay sidani aan lagu sii socon karaynin dhaqdhaqaaq baa yimiday xorriyaddoon baa yimiday markaa waa dee isticmaalku cadul maaha ka waxba aan ku ogolayna waa isticmaal dhaqdhaqaaqii waxaa ka dhashay iyadoo dhibaatooyin aad u ballaadhan oo caalamka og yahay dadka isku jinsiga tiini haddaad isdiidii xitaa oo xitaa dhibaatayda dhex marto dee turis bay leedahay laakiinse ma og tahay nooc dad ajnabiya lala dagaalamayo oo ummad kale la dagaalamayo magaalada Hargeysa 1991 markii la soo noqday dee dhulkay ku sinnayd wax alla wixii infrastructure samaysmay ee dadku samaysmay dhulku ku sinbay haddii ma og tahay dee ma dawlad ajnabi oo kale ku soo duushay haddii ahaan lahayd wax macquul ahaan lahayd على كل حال Somaliland iyadoo isku tashatay oo cid kale waxaan ayna la qaban amnigeedu way samaysatay dawladnimadeedii way samaysatay dadkii way heshiiyeen dadkii waxay samaysteen maamul ay ku naaloodaan oo maanta aan nabadgelyada haysano geeska Afrika waxay tahay noocyada lagu daydo dadkana samaystay Soomaalida meel kasta oo ay joogto ama Jabuuti ha joogto ama Kilika ha joogto ama Soomaaliya ha joogto ama moogta Kenya ha joogto waa dad walaalahaya dad moogtahay aanu jecelahay weeyaan waxa jira dawlado badan oo carab bay wadayihiin annaguna dawlad waxaan nahay Soomaali dee dawlado waa noqon karaa horeyna waanu ahayna waan isku darsanay dawlado waa noqon karaa waxa daba socda intan dambe iyada oo moogtahay ay ahayd in raali gali ballaaran ay ka dhacdo wixii dhacay haddana moogtahay waxa socda waxaan moogtahay aad u qurux badan kama tirsanayno waxyaabaha aan aad foosha xun leh kama tirsanayno shicibka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku nool waa dad walaalaha